السلام عليكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنيت شبنا هنمرغوننا إذنك أيا أحكوا سرينيا هدي آتهين كوا إيمان له. وآيدي أوبرتي ستويترك صوردقي رئيس الوزراء باكستان إيمانت العسلي إن يرؤن عسلادي سكار وهو عمران خان رشي سندكم مركي أو أها 1950 gudaha magaalada Lahore taas oo caasimad u ah ismaamulka Punjab. waxa uu waxbarashadiisii bilowga ku qaatay isla magaalada dugsiga sare iyo jaamacadana waxa uu ku dhigtay cariga Ingiriiska siiba jaamacadda caanka ah ee Oxford waxaana uu shahaada master ku qaatay suugaanta. muddo 10 sano ah ayaa uu wadankiisa u siday calanka ah in uu yahay ninka ugu fiican dhanka sawirka gacanta ilaa laga soo gaaray dhamaadka koobka ciyaartaas oo ahayd 1992. dhanka siyaasadda marka aynu eegno sanadkii 1996 ayaa waxa uu uunkay oo asaasay xisbi siyaasadeed magaciisa la dhaho Insaaf oo macnaheedu uu yahay cadaalad. markii ugu horeysay ee uu ku guuleystay in uu noqdo xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka waxa ay ahayd 2002. 7 casho ka hor hadal jeedin uu lahaa waxa uu ku yiri Mareykanka ayaa waxa iiga timi fariin u dhigan sidan: iska casil xilka aad u haysid wadankaaga. haddii aad yeeli weydo waxa aanu ganaaxi doonaa wadankaaga, waxaanan ku soo rogi doonaa ganaaxiyo iyo ciqaabo aanu kari karin. waxa uu Cimraan Khan intaa raaciyay: anigu ma ihinin u sujuuda cid aan alle ahayn, ma yeelo waxa ay noo yeedhiyaan reer galbeedku. mushkiladu meesha ay ka dhalatay ayaa ah in Cimraan Khan uu ahaa nin aan yeelin waxa ay reer galbeedku rabaan, wadankana u saaray badhaadhe dhaqaale iyo mid aragtiyeed. Soomaalida ayaa waxa ay ku mahmaahaan gaalku meesha uu neef geel ah marinayo mudac buu ku eega. gaaladu iyaga oo aan rabin Cimraan maadaama aanu ahayn ninka ay rabeen ee dabadhilifka ahaa ayaa ay haddana ugu soo marmarsiyoodeen safar uu ku tagay Ruushka intii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay Ruushka iyo Ukraine. kadib waxa ay reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Mareykanku ka codsadeen Cimraan in uu sharax ka siiyo booqashadiisa iyo waxa ay daarnayd. isaguna ma gabanay inta uu af labadii kala qaaday ayaa waxa uu yiri: annagu waxa aanu nahay dad xor ah, waxa aanu tageynaa oo u safraynaa meeshii aanu dantayada ka dhex aragno, annaga oo aan cidna faahfaahin ka siinin. mucaaradka Cimraan Khan ayaa soo gudbiyay mooshin ah in la casilo. hase ahaatee gudoomiyihii baarlamaanka ayaa mooshinka laalay, waxba kama soo qaadna ka dhigay. nasiib darrase gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisii ayaa iscasilay. taageerayaashii xisbiga Insaafna waa ay iskaga baxeen golihii baarlamaanka. halkaas ayaa ay mucaaradku ku yeesheen kalfadhi labaad, 173 codna ay ugu codeeyeen in la casilo ra'iisul wasaaraha. sidaas ayaana lagu casilay, lagagana mamnuucay in ay wadanka ka baxaan isaga iyo dhammaan xukuumaddiisu. ra'iisul wasaare Cimraan Khan ayaa dalabka casilaadiisa ku tilmaamay qorshe ay Mareykan soo maleegeen, mucaaradkuna yihiin khaymin u baahan in wadanka laga qabto. reer galbeedka ayaa tooshka ku haya meel kasta oo ay muslimiintu madaxa kala soo kacaan, si nabana aan uga raali noqonayn in uu islaamku nidaam iyo awood yeesho. hase ahaatee cidhib dambeedka iyo libta waxa iska leh kuwa alla rumeeyay, iyada oo aanay habboonayn in ay iska fadhiyaan ee ay habboon tahay in ay wax bartaan, adduunkana ay kaga adkaadaan aqoontooda, aragtidooda iyo hal-abuurkooda. Cimraan Khan ayaa waxaa ka mid ah hadallada qaaliga ah ee uu yidhi: 1. muslimku ma aha mid wixii la rabo loo yeedhiyo. 2. uma sujuudo cid aan alle ahayn. 3. madaarista ayaa waxa aan waajib kaga dhigay in ay dhigaan siirada rasuulka si ay u bartaan Nabi Maxamed qofka uu ahaa. Cimraan Khan taariikhdu waxa ay ku xusi doontaa in uu ahaa yahayna xaliyay aan gorodda u laalaadin cid aan alle ahayn. السلام عليكم.